السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمان ولا هل كان يقدر ونيا الصوماليات ميل والبا وأشوكتان يسوي والبا دي مغلسان با وحندوني مقال كأنن كجاه هذا الله لما أرمضو كل الدون وحمر كاردون يا بلين عندي بقول لعبتو إدينا الشيء سيدا أيسوق حرينيين تاريخ هان دجال كفلسطين إسرائيل ودحية يدجال لذا يسقط قبسيجا صومالي توبيا ودحية مر والبا ودنكا يهودا فلسطين أي وحن دجال دحمران صوماليا يتوبيانا وحن بعد دحمرا تاريخ هان دور أرمض أياب لهون سوق قادنا والدين شيء جدونا وحن كلو عاو دين شيء جدونا دوقينتي ودرنايد أبد نعده وعاو كذا عدي غزة هو إسلام مركز اللوج جيستي شعب كلها فلسطين جنتال ممنوع كها دنكا markii laga hadlayo waxa loogu yeeray qaramada midoobay iyo sharciyada caalamiga ah ee beenta ah reer galbeedku ay sameysteen oo loo adeegsaday maxaa la yiraahdaa Gaza iyo gantaalkaas oo loo maleynayo inay leeyihiin ama ay soo tuurtay dawladda Mareykanka iyo arintaas aan bal falanqeyn doonaa soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba idin maqleysaanba haddii aynu ka bilowno dunida Carabeed iyo Soomaaliya xiriir adag ay leeyihiin dadka iyagu kuma baraarugsana mar walba wax walba oo dunida Carabeed ka dhaca dalka iyaga way yimaadaan haddii dunida Carabeed ay kor u kacdo horumar samayso Soomaaliya way istaagtaa hadday hoos u dhacay burbur uu ku dhacana Soomaaliya wuu ku dhacaa wana soo dagataa halka marka ay xadaaradeenu iyo nabadeenu iyo horumarkeenu iyo barwaaqadeenu ay inta badan ku xiran tahay waa dunida Carabeed ayaynu ku xiranaa ma aha inaynu leeyahay carab baynu nahay ma aha laakiin dunida Carabeed buu dalka iyagu ku xiran yahay horumar ahaan dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba markay wanaagsan yihiin wanaagsanna markay dagaanna wadagayna taa marka waa midda koobaad waxyaalaha aan rabnaa intu soo inaan saa isugu xiranahay waxa kamid ah kooxaha xaq jirka ah ee dunida Carabeed aafeeyay ee magaca diinta ku qaraabanaya markay bilaabanayeen dalkeenu waxaan u qabnay ciyaar indhaynu ka daawanayna 2006 2005 2004 ma jirin qof Soomaali ah oo islaha qof kale oo Soomaali ah inta isqarxiye isku qarxinaya Soomaali kale isagoo janno ka raadsanaysa maan lahayn markii maxaakiimtu ay jirtay ma jirinin cid ka fakiraysay haymaan doona Soomaali kale ama koox kale oo Soomaali ah oo isla markaasna Soomaalida kale isku qarxisa oo janno ka dhex goobaysa cid ku fakiraysa ma aysan jirinin markaasna dunida muslimka iyo dunida Carabeed arintaas way ka taagnayd meel walba isku qarxinayeen ilaa iyo markii dambe aynu aragnay inay fadhigeen noogu timaaday oo maanta waxa dalkeena ka taagan qaraxay waxa ay yihiin wax halka ka yimaaday taa marka waa tusaale inoo tusaya sida meesha dunida Carabeed wixii walba oo ka yimaada ay noogu imaanayaan haddadan dalka sida Falastiin sida Iiraan iyo dalalka kale ee Islaamka ay meel badan oo kamid ah waxyaalaha hadda ka socda ay gaaladu la yaaban yihiin hubka ay sameynayaan iyo gantaalada ay sameynayaan oo dunida hadda ka yaabsatay iyo tiknoolajiyada ay la soo baxeen dawladaha dadka muslimka ah sida Iiraan sida Turkiga sida hatta hadda Hamas ba sameynaysa iyo Hizbullah ba hore u sameynayay arrimaha noocaay oo kale mustaqbalka dhow Soomaaliya inay imaanayaan ciidan weydiinaya ma jirto inaad arki doonto Soomaali isku adeegsanaysa drone Soomaali isku garaacaysa gantaalo ama Soomaali dawlad noqotay oo waxa isticmaalaysa in la arkaa very soon ma aha arrin la yaabayo wax walba dunida Carabta ama dunida Islaamka ayaa la weyno imaanayaan wax xaqiiqo wey ama hadda ahaan ama degdegan taa marka waa midda koowaad oo briefka taa markii laga soo tago dagaalka Israa'iil ay ku qabsatay ama Yahuuda loogu beeray ilaa 500 oo milyan oo muslima gudahooda dhowrka milyan Yahuuda ee lagu abuuray bilowgoodii markii lagu abuuray anagana saameyn bay nagu lahayd oo sabab ay nagu lahayd halka hadii aad ka arkaysaan in waqti ugu horeeyay oo Yahuuda lagu dhax abuuraa Falastiin ay ahayd 1941 isla xilligaasi xilli aan aad uga fogeyn ayay ahayd markii Soomaali galbeed loo gooyay maxaa la yiraahdaa Ethiopia oo colaadayada iyo isqabsiga iyaga xuduudad xilligii ay reer galbeedka iyo Ingiriiska naftirkiisa qorshaha sameeyay ninkii u gooyay Soomaali galbeed Ethiopiana Ingiriisku ahaa isla Ingiriiskaas uu ahaa wixii Yahuuda ku dhax beeray Falastiin iyo dhulkooda isla qorshahaas uu wata waxay dadku yiraahdaan ama ay leeyihiin markaas xilli ka horeysay ayaa dad Yahuuda Ethiopia ay deganaayeen waxna sababta mar walba Ethiopia iyo anagu aynu isqabsano Falastiin iyo nacana ay wax uga dhacayaan oo ay isugu xiran yihiin taa marka midda ugu horeysay dhulkeena markii la gooyay iyo markii Yahuuda la geeyay dhulkaasi isku mar bay ahay laba ama hal sano wax la mid ah uma u dhaxeeyay
markii ay bilaabatay dagaalkii Soomaaliya iyo maxaa la yiraahdaa iyo Ethiopia xilliga ugu horeeyay oo dagaalkaasi uu bilowday 1964 bay ahayd isla 1965 67 waa markii uu qarxay dagaalkii 6 maalmood loo bixiyay Carabta iyo Yuhuudda ay dagaalamayeen isla xilligaas uu qarxa inta uusan qarxin ka hor ayayna arintan soo socotay 1967 buu qarxa dagaalkaasi laakiin ka hor bay colaadii isqabsigu uu jira ka hor inta aysan Carabta iyo Yuhuudda aysan dagaalamin dagaalkii 6 maalmood loo bixiyay annaguna dagaalkanagii aynu Ethiopia la galnay ilaa 1964 buu bilowday ilaa xilligan uu soo gaaray oo uu socday isku mar buu ayaguna ahaaba la oran karayaa taariikh ahaan xilli aad isugu dhow ayuu ahaa hoos markaynu u soo degano dagaalkii 77 ee taariikhda galay Ethiopia waxaan ogaa inuu ku sameeynay inta aan dagaalka aan gelin ka hor isqabsigii Carbeed iyo waxa bilowday iyo maxaa la yiraahdaa Yuhuudda waatii 1973 ay masaarida iyo ay dagaalameen Yuhuudda isla qadiyadiyo taagan oo aan dhamaanin oo dagaalkii wali uu socdo masaarida iyo Yuhuudda ayuu qarxay dagaalkii 77ka ee Soomaalida iyo Ethiopianka markaas uu qarxay markaysan so mar walba marka arintaas ay qaraxdo ama dhinacaasi wax ka dhacaanba Soomaaliya saameyn toos ah ay la yeelataa mar walba Carabta Yuhuudda ay dagaalamaan anaga iyo Ethiopianku waan dagaalanaa waxyaalaha Yuhuuddu ku riyoto waxa kamid ah in Suez Canal ayagu ay gacanta ku qabsadaan cidii furtay kanaalkaasna Ingiriis buu ahaa qorshaha ugu weyn oo markaas uu arkayeen waxa weeye halka Suez Canal uu ka soo bilowdo oo Red Sea uu kaga soo darwaad Soomaaliya halka uu ku dhamaado ay ka fureenna meesha hadda Masar iyo Palestine ee xuduudda ay ka leeyihiin oo ay fureen weeyo kanaalka hadda la isticmaalo markaysan sida daraadeed marka mentality-ga Ingiriiska hadda ay Yuhuudda iyo Mareykanku ay isticmaalayaan waa in afkaas meesha Red Sea kaga daran oo Soomaaliya aana ayagu ay qabsan markii hore meesha Red Sea ay kaga dareen cidii haysatay Ingiriiska ahayd ugu meeshatay meesha hadda waqooyiga taqaana Soomaaliya ay tahay weey sida daraadeed marka riyadoodii bay ahaayeen in Suez Canal oo dhan ilaa iyo meesha Red Sea kaga daro cid gacanta ku haysa ay Ingiriis tahay ama Yuhuud lagu wareejiyo markaysa arinta noocaaya marka riyada ah ayaa hadda maanta ito dagaalkan bilowday ee Gaza hadda ka socda ee loo arkay inuu noqon doono dagaalkii dunida saddexaad ama dagaalkii saddexaad ee adduunka ka dhici doona loo arko awoodda iyo saameynta uu leeyahay cabsida weyn laga qabo hal mar baa waxa isla soo dhacay in ay bilowdo in Israel ay tiraahdo maxaa la yiraahdaa Gaza inta burburino waxaynu ka dhisaynaa magaalo cusub ayaynu ka dhisaynaa waan cabsida ugu weyn oo hadda jirta sababta ay Falastiiniintu u diiday inay qaxaan waxa weeye 1941kii markii ay qaxeen dhulkoodii waa la dagay saas u gacantooda uga baxa 1960kii markii la dagaalamay ama 67kii markii la dagaalamay dagaalkii 6 maalmood dhulkii ugu weynaa bay ka kaceen Falastiin sidii dhulkoodii lagu daga haddana hadii ay Gaza ka kacaan waa la dagay marna dib u meelayaan mar walba oo la dagaalamo dhulka ay ka kacaan Yuhuuddu ay qabsto dib uguma laabtaan هذا مركز سابتي أوقي لا يوجد هذه غزة كبحان أما نورث أوف غزة دي كبحان دب أمهليان ولا سابتي ودونيان إن سكب بحين وقلنا معنا يان وسلاوي سيدا درادة مركز قرشها هذا أي وضو يهود أي وضو صور أي كوسا بوستجريان إنستغرام كإيميلها أي شركة يهود كل شيء جاني الدنيا يعني غزة تكقب صدام فلسطينيين تكبعدين أي كاتسان مجالوين أي يهود ولا ده هاي صور أنا اللباهية والقاب كل دونيو in loo dhisa qaabka uu shirkada bilaabay ee dhahan haddana si iibinayna dhulkaas cid laga iibin lahaa Yuhuud baa lagu abuurayaa iyo in la yiraahdo waliba Ethiopian baa lagu abuurayaa baa la yiraahday 24 saac la soo dhaafayna waxa si xoog leh Instagram-ka uga socday sawir noocaas oo markii dambe la report gareeyay qayb badan oo kamid ah xataa laga saaray qaarna wali ay ku jiraan isla marka Ethiopia ayaa ciidanka ugu badan oo Yuhuud ay qorto halka laga qorto waa Ethiopia weeyaa oo xagga la geeyo ilaa intaasoo kun oo ciidana oo Ethiopiana ayaa Israa'iiliyiin laga dhigay oo Israa'iil degan oo guryo la siiyay oo halka xaaskooda u rartay oo ayaga ka mid noqday oo citizenship sida lagu siiyay sida hadda anagu ay dunida Carabeed sida hadda Qatar oo kale ay Soomaaliya u tagi jirtay welina u tagto oo citizen looga dhigo si la mid ah ayaa ku ana ayagana loo sameeyaa xagga loo geeyaa arrintaas oo marka taagan ayuu Abiy Ahmed wuxuu ku dhawaaqay inuu u baahan yahay inuu Red Sea qabsado oo yiraahdo Soomaaliya badeedan qabsanaya uu yiraahdo su'aashu marka maxay tahay warkan maxaa isku soo beegay duulaankan cusub ee Israa'iil soo qaaday iyo midka Yuhuudda hadaysan waligood ba xiriir lahayn
ilaa 41kii bay xiri lahaayeen ilaa 60kii bay xiri lahaayeen 77kii bay xiri lahaayeen maantana way taagantahay mar walba oo ay Falastiin wax ka dhacaan Ethiopia annaga inuu soo siqdaa markaysa ayaamii la soo dhaafay dhul balaarsi ba Soomaali galbeed ka socday xasuuq loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed la Ethiopianeeyo leeyahay dhulka annaga iskale la soo siqinayo oramada ku siqayso afarta ku siqayso ilaa ay hadda la yiraahdo Soomaalidii dhulka dadgalay Soomaali galbeed waa Ethiopian may qabsadaan badooda oo Ethiopia hoos keenan bay hadda u maraysaa taa markay lagu baraarugo isha lagu hayo xiriirka ay leeyihiin ummaduna ay ka baraarugto ayaan doonayaa qodobka inta san ugu talagalay san uga baxaya dhanka kale to caawa duqeyn aan la arag ayaa Gaza ka dhacday hal isbitaal ba 1000 qof iyo in ka badan ay ku dhimatay kadib markii gantaal kamida gantaalada sida culus wuxuu gumaada lana ogaa gantaalkaasi cid gacanta ku haysato oo kaliya inay Mareykanka tahay lagu dhuftay isbitaal ku yaala Gaza gantaalkaas oo markii magaciisa soo gaabi loo yaqaano JDAM ayaa caaw lagu dhuftay isbitaal ku yaala magaalada Gaza oo dad masaakiina oo hore dhaawacyo u gaaray ayaa lagu dhuftay inta caaw la soo tabinayna ugu yaraan kun iyo in ka badan qof ayaa ka ku dhimatay waa gantaal markii qaramada midoobay ay sheegay in cadaalad iyo khayr ka shaqeeyaan nimankii sinaanta iyo cadaaladda iyo dimuqraasiga ka shaqeyn jiray gantaal ay hore ugu sheegeen inaan loo adeegsan karin magaalooyinka inaan loo adeegsan karin shacabka inaan loo adeegsan karin meelaha qaarkood oo sharciyad u baahan tahay ayaa caaw lagu dhuftay walaalihii Falastiin arrinta markii bicilka isku sharartay kacdoon xoog leh baa bilowday dunidii Carabeed oo dhan waxa ka kacay kacdoon u muuqda Arab Spring kaasoo runtii isku bedeli karaba awood ciidan iyo dagaal iyo in dunida Carabeed oo dhan markaasi looga yaaco oo gurmad iyo dagaal loogu tago ila difaaca walaalaha Falastiiniinta sida daraadeed waxa hadda la gubay safaaradii ay Israel ku lahaayeen Jordan oo dab la qabadsiiyay waxa sidoo kale hadda banaabaxyo xoog leh oo rabshado leh ay ka socdaan dalka Turkiga marka meel walba marka rabshadaha ka socda berrina waxa laga balansan yahay meel walba oo duni muslim ah iyo caalamka oo dhan waxaana la sameynayaa banaabaxyadii ugu waaweynaa waxa la aaminsan yahay in hadii ay yuhuudu gasho Gaza oo ay xuduudda dhaafto inay tahay bilowgii dagaalkii saddexaad ee adduunka inay dawlado badan oo Iran iyo Turkida ay la mid tahay iyo xataa masaaridu ay ka digeen inaan gudaha loo gelinin duqeyntan la joojiyo duqeynta qasaaraha inta leeg ayaa qayle ka taagnayd gudaha haday u galaan maxaa dhici doona waa cabsida ugu weyn ee maanta caalamka ka taagan sidoo kale sirdoonada dalka Mareykanka saraakiil hore ee dalka Mareykanka u ahayd sirdoono FBI-da ah ayaa saacadii la soo dhaafay siyaabo kala duwan warbaahinta iyo baraha bulshada uga sheegayay inay jirto cabsi weyn oo laga qabo hadii gudaha Israa'iil ay u gasho Gaza inay qaraxyo iyo duqeymo ka dhacaan dalka Mareykanka oo dagaal iyo colaad adduunka oo dhan iyo Mareykanka Israa'iil ah in markaasi ay dhacdo taasoo loo arko burburkii yuhuudda iyo awoodda dalka Mareykanka cabsidaas oo keentay inay dib ay u dhigtaan inaysan gelinin gudaha Gaza oo markaasi la yiraahdo dib ha loo dhigo waana sababtii keentay inay hadda laga baaqdo todobadii maalmood oo la soo dhaafay yuhuud waxay lahayd waan galeynaa gudaha Gaza ilaa hadda ma aysan gelin cabsida ugu weyn marka laga qabo waa in dagaalku u balaarto isla markaasna muslimka oo dhan iyo dunida caalamka oo dhan ee dagaalkaasi marka ay ku biiraan arrinta halka taagan waa arrin musiibo ah xasuuq loo geysanayo Allahaasna waa musiibo waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed waxa ugu yar u qaban kartaan waxa inaad u duceysaan in dunida muslimka ah ee gubanaysa idka muslimka ee la gubayo ee lagu soo duulay dhulkooda aynu u duceyno ishana ku hayno waxa halka ka socda waxaan ka qaban karnaa ma jirine intaasaan ku soo koobaya inta dib isaga soo laabanayno waxaan ka taagsan nabadino assalamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh